horeysa inaan u hambaliyo sanad guuradii koowaad ee duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Finish oo ay ka soo wareegtay waqtigiisa hal sano runtiina aan dhihi karno wax qabad muuqdo qabtay halkaas sano oo runtii lagu diirsan karo marka aad maqasho magaca Soomaaliya waxa markiiba kugu soo dhacaya caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyo gobolka Banaadir ah muraayada dalka waxaana moodaa maalmahan dambe inay aad u soo kabanayso caasimadda gobolka dhinac walba marka u fiiriso horumarka iyo bilaada iyo wadooyinka iyo sida isula socota iyadoo dhan marka waxaan leeyahay gudoomiye aad ugu mahadsan tahay adiga iyo garbahaaga iyo shaqaalaha gobolka Banaadir wax qabadka muuqda ee ka qabateen dalkan waxaan ku leenahay sanad guuradaada hambalyo waxaan leeyahay sanadkan kiisa kale iyo kuwa ka dambeeyana waxaan ku rajaynaynaa adigoo lagu doortay caasimadii gobolka Banaadir oo madaxweyne rasmi ah loo doortay inaad noqotana waa rajaynaynaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxa kale oo farxad ah in gobolka Banaadir uu helay markii ugu horeysay in uu maqaamkiisa saxda in la soo celiyo oo ay helaan in ay mumathalka aqalka sare ay qayb ka noqdaan aan rajaynayno mar dhow inay soo dhamaato gobolkaanina oo la mid noqdo maxaan ku yiraahdaa gobolada aqalka sare mumathalka kule ee xuquuqda ugu badan iyo dadka ugu badan ay degan yihiin ayna ku taalo caasimadii dalka oo ah maxaan ku yiraahdaa dakhliga ugu badan dalka oo ka soo galana dalka oo dhan lagu waraabiyo waxaan leenahay reer Muqdisho waa soo dulqaadateen in yara idin dhiman ee sugta dhamaystirtana inta dhiman insha Allah hadii la yiraahdo waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan u hambaliyeeyo una mahad celiyo maamulka gobolka Banaadir iyo maxaan ku yiraahdaa ciidankiisa iyo shaqaalihiisa oo isku duuban waxa ay qabteen waxaan idin leeyahay mudane gudoomiye hambalyo wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh thank you